نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا. qisada aan maanta idiin soo gudbinayo waa qiso cajiib ah oo laga yaabay inaad horay u maqashay ama aadan maqal. waa qiso qofka muslimka ah ugu sugan inuu mar walba saacadda qiyaamaha dhicisteeda uu qalbiga ku hayo. rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, maalin maalmaha ka mid ahayd aniga oo la fadhiya Jibriil calayhi salaam, waxaa hal mar kala dhambalmay ama kala dilaacday samada sare. waxaa ka soo degay dhankii samada malag. markaasuu malaggii inoo yimid aniga iyo Jibriil oo wada fadhiya, isaga oo aad inoogu soo dhowaaday. saa Jibriil calayhi salaam markii uu arkay malaggii wuxuu u muuqday mid la yaabay malaggii imaashiyihiisa, yacni wuu isku yaryaraaday oo wuxuu u muuqday qof cabsaday. markii uu malaggii u yimid nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi, rasuulkii Allow, waxaan ahay fariinside kaaga yimid xagga Alle. rabbigaaga wuxuu ku siinayaa laba doorasho ama laba ikhtiyaar: inaad noqoto nebi u nool sida boqorada oo kale, ama inaad noqoto nebi u nool sida addoommada oo kale, yacni aan isla weynayn. nebiyada sida boqorada camal u noolaa waxaan tusaale u soo qaadan karnaa Sulaymaan iyo Daa'uud calayhi salaam oo ku noolaa nolol weyn, dunida siday doonaan u maamuli jiray, heer uu Alle u saqiray in dabaysha ay la shaqayso. haddaba Muxammadow sallallahu calayhi wasallam waxaad doorataa inaad noqoto nebi boqor ah ama inaad noqoto nebi addoon ah oo aanan wax kibir ah ka muuqan. saa wuxuu yidhi rasuulkii Alle sallallahu calayhi wasallam, markii labadii doorasho la ii soo bandhigay waxaan eegay dhankii Jibriil calayhi salaamna wuxuu ii tilmaamay inaan doorto tawaaduca. markaasuu rasuulkii Alle malaggii ku yidhi, waxaan dooran inaan noqdo nebi sida addoommada camal u nool. saa markii uu malaggii ka tegey rasuulkii Alle iyo Jibriilba, wuxuu rasuulkii Alle eegay dhankii Jibriil, isaga oo ku yidhi, maxaa ku helay Jibriilow, waa adiga isbeddelay markaad aragtay malaggan. Jibriilna wuxuu rasuulkii Alle ku yidhi, Muxammadow sallallahu calayhi wasallam, malaggan aad aragtay maanta weligii maanta ka hor dhulka ma uusan u soo degin, yacni keligii ma soo degin. wallaahi allihii uuntay ayaan ku dhaartay, wax kale ma aanan u qaadan oo aanan ka ahayn in saacadda qiyaamaha ay dhacayso maanta. haddaba ma garanaysaa malaggaasi? waa Israafiil, waa malagga afuufi doona suurka qiyaamaha, waa malagga dadka ku wargelin doona in saacadda qiyaamaha ay dhacday. Jibriil markii uu arkay Israafiil oo xagga dhulka u soo degay, wuxuu u qaatay in dunida ay dhammaatay maanta. haddaba sidee ayay u saamaysay rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam inuu doorto inuu noqdo nebi addoon ah, yacni inuu noqdo nebi la mid ah addoommada Alle oon waxba ka duwanayn. tusaale, rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam mararka qaar markii wax cuni jiray wuxuu wax u cuni jiray isaga oo dangiga, yacni isaga oo dhabarka meel ku tiirsaday. laakiin markii ay dhacdadaani dhacday kadib, wuxuu rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam raashinka cuni jiray isaga oo fadhiya. heer rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam gaajo darteed uu dhagaxaan caloosha ugu xirtay, isaga oo arrintaasi kala mid ahaa saxaabadiisa oo ay gaajo daran haysay xilligaasi. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن
من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي qisooyinka nebiyada